xilliyadii dhexe iyo soo ifbixii diinta islaamka iyo fiditaankeedii ayaa raadad badan laga hayaa culimmadii carbeed ee diinta fidinaysay. kuwaas ayaa maamuladii ugu horreeyey ka yagleelay magaalooyinka xeebaha ku yaala Saylac, Awdal, Berbera iyo Laxaar. ilaa qarnigii 15aad suldaano carbeed ama suldaano carabta ku xidhan ayaa arlada ka talinayay. qarnigii 16aad Bortuqiiska oo boqortooyadii Abbaasiyiinta ka foodsaar ka dhiganaya ayaa gobolka Geeska Afrika soo galay, jabiyeyna kacdoonkii islaamiga ahaa ee Axmed Ibraahim Al-Qaasimi Axmed Gurey. qarnigii 17aad waxa ay Soomaalidu taageero ballaaran ka heleen boqortooyadii Cusmaaniyiinta ee Turkiya. ilaa iyo qarnigii 19aad ayaana Cusmaaniyiintu ka yigeen dusha ka ilaalin jireen, tii oo ay Masaaridu wakiil uga ahayd. raadadka ay Turkidu waddankeena kaga tageen waxaa ka mid ah biyaha dubaareed ee Berbera. dubaar waa erey afka Turkiga ka soo jeeda oo la micno ah derbi. waxaa kaloo calaamadaha iyo raadadka ka mid ah masjido uu ka mid yahay masaajidka jaamaca Berbera. muuqaalada kale ee ilaa hadda la hayo ayaa waxaa ka mid ah masjidadaasi uu ka mid yahay masjidka jaamaca Berbera. 1869 waxaa la furay kanaalka Suez, taas oo si dhiirigelisay damacii gumaystayaasha reer Yurub iyo kacaalkoodii warshadaha ee xilliyadaas dunida ka calaamadeynayay. 1839 waxay ku beegnayd qabsashadii calameed ee Ingiriiska, taas oo iyana ahmiyad xeel qorsheed ama istaraatiijiyad siisay xeebaheena oo noqday marin isku xidhaya mustacmaradaha Ingiriiska ee Yemen iyo Hindiya iyo dhinaca kale ee iridda Afrika laga galo. 1854 waxaa booqashooyin iyo sahan dhulkeena ku yimid Sir Richard Burton oo ilaa herer ku samay kulamo badan oo Ingiriisku la yeeshay salaadiintii Somaliland. aakhiritaanka waxaa dhex martay mucaahadadii calanka ahayd ee saanta lagu kala saxeexday. waxyaalaha lagu heshiiyeyna waxaa ka mid ahaa in Ingiriisku ilaalin doono dhulka Somaliland, in uu suuq geyn doono oo uu ka iibsanayo hilibka iyo xoolaha noolba, in aanu faragelin doonin arrimaha gudaha sida diinta, dhaqanka iyo wixii la midka ah, in aanay haweenkiisu ka yigeenna ku umuli doonin ama ku umuli karin, qofka geeriyoodana aan lagu aafi karin, in uu ka guuri doono xilliga ay ka codsadaan in uu ka guuro. waxaa xusid mudan in Ingiriisku ka baxay heshiiskaas muddo yar